haddii aan portfolio dib u dhisan lahaa waa kuwan coinka aan maalgashan lahaa videogan coinka aan kula wadaagi doono ma ahan oo kuma lihi coinkan maalgasho fadlan xog kugu filan raadi adiguna ku maalgasho aqoontaada iyo xogta aad soo raadisay coinka aan maanta isleegi doono waa inay ahaadaan kuwo proof of concept kuwo iska dhaqaaqi karay iyo aan u baahnayn boomboon haddii ay tahay social media iyo haddii ay tahay influencerba coinkaasna waa inay ahaadaan kuwo solid kuwaas oo leh high market cap ama mid market cap ugu badnaana dhaqaaqay 4x sectorka koowaad isla eegi doono waxa weeyaan DeFi sector ama decentralized finance coins coinka koowaad isla eegi doono waxa weeyaan Axelar waqti xaadirkan waxay taagan tahay 0.9 ay taagan tahay kaalinta ay ku jirtaan waa 160 ay ku jirtaa market cap-keedu waxa weeyaan 804 milyan volume-ka ugu dambeeyay macna 24 saacadood ugu dambeeyay kula qolqol waxa weeyaan 34 milyan weeyaan maximum supply ma lahan goorma gaadhay maxaa la all time high waxay gaadhay March kowdeeda ay gaadhay 2024 waxaan hoos u dhacsan tahay 65% wuxuuna ahaa $2.64 waqti xaadirkan waxay taagan tahay maxaa la 0.9 ay taagan tahay bottomkiisa hadaynu fiirino goortay waxay ahayd August 2024 lixdeedii ayuu mataqaana 0.4 u gaaray waqti xaadirkan wuxuu taagan 0.9 macnaheedu waxa weyn 1x ayuu sameeyay ama uu mataqaana meeshii ugu hooseysay uu ka dhaqaaqay DeFi-ga kaliya waxaan isleeyahay Axelar kaliya ayaa mataqaana weli ka dhaqaaq fiican aan sameeyay balse hadda waxaan guda geli doonaa qaybta gaming ama sectorka gaming kaasoo mataqaana saddex coin aynu isla eegi doono coinka koowaad aan isla eegi doono sectorka gaming waxa weyn Falcon Forget waqti xaadirkan wuxuu taagan yahay $3.99 ayuu taagan yahay wuxuu ku jiraa kaalanta 640 ayuu ku jiraa market cap-kiisu waxa weyn 95 milyan weeyaan volume-ka 24 saacadood ku qulqul waxa weyn 22 milyan haddaynu fiirino all time high goormu gaadhay muxuuse ahaana all time high wuxuu ahaa $49 ayuu u gaadhay goormayna ahayd 2021 ayuu gaadhay bahayd waqti xaadirkan wuxuu hoos uga dhacsan yahay 91% ayuu hoos uga dhacsan yahay coinka labaad ee sectorka gaming isla eegi doono waxa weeyaan waa SAI waqti xaadirkan wuxuu taagan yahay $0.3 kaalinta ku jiraan waxa weeyaan 365 market cap-kiisu waxa weeyaan 244 milyan volume-ka ku dhex qulqulay 24 saacadood ugu dambeeyay waxa weeyaan 59 milyan weeyaan goorma gaadhay all time high waxa ay gaadhay 2024 February ay gaadhay muxuuse ahaana wuxuuna ahaa $1.59 79% ay hoos u dhacsan tahay waqti xaadirkanna wuxuu taagan yahay markaynu fiirino maxaa la dhahdaa bottomkiisa intuu ka soo dhaqaaqay ama uu sare uga soo kacay waxaad moodaa mataqaana bottomkiisu aad ugu dhow yahay waayo wuxuu ahaa bottomkiisa ugu hooseeyay Allahumma musta'an ala ma tasifun wuxuu ahaa 0.1 ayuu ahaa waqti xaadirkan wuxuu taagan 0.3 sectorka saddexaad in isla eegi doono waxa weeyaan AI sectorka AI-ga coinka ugu horreyn isla eegi doono waxa weeyaan inkastoo coin fara badan kayn halka coin aan ka hayaan waa kan coinkaasna waxa weeyaan waa Veracity wuxuu ku jiraa kaalinta 812 waqti xaadirkan wuxuu marayaa $0.06 ayuu marayaa market cap-kiisu waxa weeyaan 62 milyan weeyaan volume-ka ku dhex qulqulay 24 saacadood ugu dambeeyay waxa weeyaan 16 milyan goorma gaadhay all time high waxay gaadhay 2021 November koodeedii 92% ayaan hoos u dhacsan tahay haddaynu fiirno market-kiisu halka uu taagan yahay ama technical ahaan halka uu taagan yahay on geeno maxiga waxaan arkaynaa bottom-kiisu wuxuu ahaa 0.002 ayuu ahaa waqti xaadirkan wuxuu taagan yahay 0.006 macnaheedu waxa weeyaan hadduu bato 3x ayuu sameeyay haddii weli ka videogan wuxuu ka anfacay fadlan videogan like noo saar naguna soo biir haddana nagu soo biir aadayna ku soo dhaweynaa sidoo kale telegram link ayaan leenahay kaasna hoos ayaan ku soo dhigi doonaa nagu soo biir telegram-kayga ku soo biir bilaalka waxaan soo galaa live taasoo mataqaana idin kula wadaago oo wax wada akhrisano sidoo kale suuqyada aynu ka wada sheekaysano iyo sidoo kale wixii finance ku saabsan iyo wixii sidoo kale ku saabsan korinta maskaxda marka nagu soo biir ayaan kula nagu soo dhaweynahay sectorka afraad in isla eegi doono waxa weeyaan CBDC coinka mustaqbalka bedeli doona banking system badan wada dhaqaaqeen waayo Ripple Algorand waxaad mooday mataqaana iyagu inay ugu bashidnaayeen dhaqaaq badan iyaga sameeyay balse waxa jir wiilka coinan aanan dhaqaaqin mustaqbalna sidooda oo kale leh coinka ugu horreyn isla eegi doono waxa weeyaan consultation ama DAG consultation wuxuu taagan yahay xaadirkan 0.07 ayuu taagan $1 wuxuu ku jiraa kaalinta 333 ayuu ku jiraa market cap-kiisu waxa weeyaan 276 milyan weeyaan volume-ka 24 saacadood ku dhex qulqul waxa weeyaan 2 milyan goormu gaadhay all time high wuxuu gaadhay 2021 August 30 ayuu gaadhay
wuxuuna ahaa 0.4 ayuu gaadhay waqti xaadirkan wuxuu hoos u dhacsan 82% haddaynu fiirino maxaa la yiraahdaa max aynu eegno sida uu mataqaana technicalkiisu uu eegyahay waxaan u jeednaa mataqaana inuu dhaqaaq sameeyay kaasoo bottomkiisa haddaynu eegno wuxuu ahaa 0.02 ayuu ahaa waqti xaadirkan wuxuu taagan yahay 0.07 ayuu taagan yahay macnaheedu waxay tahay waxa laga yaabaa inuu sameeyay 3x haddana qaldanin coinka labaad aynu isleegi doono qaybta CBDC coins wax weyn quant waa coinka aan isleey weli ka dhaqaaq fiican ma sameeynin balse pricekiisa ayaa isagu aad u qaaliya marka waxaan isleeyahay qof walba inuu eego weeyaan waxay ku jirtaa quant waxay ku jirtaa maxaa la dhahdaa kaalinta 77 ayay ku jirtaa waqti xaadirkan waxay taagan tahay 142 market capkiisu waxa weyn waa 2 billion weeyaan volume ku dhex qulqul 24 saacadood ugu dambeeyay waxa weyn 87 milyan supply-giisa aad u yar waxa cajiibka quant mataqaan maximum supply-giisa ayuu yaryahay goorma ayuu gaadhay maxaa la dhahdaa all time high 2020 ayuu gaadhay muxuu gaadhayna wuxuuna gaadhay $427 ayuu gaadhay waqti xaadirkan wuxuu soo dhacsan yahay 67% ayuu soo dhacsan yahay haddaynu fiirno maxaa la dhahdaa technicalkiisa siduu eeyahay oo tagno max waxaan arkaynaa inuu dhaqaaq sameeyay bottomkiisa haddaynu eegno wuxuu ahaa 61 waqti xaadirkan wuxuu taagan yahay 94 wilkaada 1x حتى ما سمينين هدي أد wilkaada ku wareersanta oo dan fahansanayn suuqa cryptocurrency sidoo shaqeeyo waxa jira video aan adigu ku soo diyaariyay kaasoo ah koorso free halkan ayaan ku soo dhigi doonay daawasho wacan